بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أولا تاريخ ومد فوق قرينك علماء السياسة وحيرهان وحاجر وحلا يراهو biological age وحلا يراه political age biological age وحوي قفك عمر جيس إمسو جرا political age وحوي إمسو سياسة كوسو جري مركا هوش ومركا أو كجرو هذا نرشيد ودور اللي حنا نشرب عنها الحمد لله أنا أقول شيء مقالة مقدشو أصلاً بلدان بانكيمن لكن كورتان كي محبر الشذي هالكاسين قاطي سياسة وحنقري كونوا يسقال بقول يتضباطا يسديدي ما أنت والله بكون يسديد طبعا أفرتن سنة أي بحسنتي إلهي فلقس وحنكبر هذا حزب الأورنجري سومالي سلفيشن ديمقراطيك فرونت oo aan markaan oo dhalinyaro ka qayb galay noqdayna xubin ka mid ah golaha dhexe ee xisbiga isaga ah kadibna siyaasaddu muddo dheer bay soo qaadatay waxaan u badnaa inta mucaarad baan u badnaa waxaan raadinay mar waliba hadda Soomaaliya ka dhalata dawlad caadila dawlad ummadeeda u naxariisata hoggaan vision leh wadan khayraad badan weeye shacbiguna waa shacab yar dhulkuna baaxadiisu baaxad الوين لويه marka de waxaan lahaa maxaa ka lifaayay mar waliba ummadda Ilaahay siiyay barwaaqadaas hadana ka gaajeysan oo dhibka ku jira markasta waxaan markaa muxuu ahaaytay ku andacoon jiray maamulka markaa jira inuu hagarasho ay ku jirto madax ka nool ay tahay hantida ummadda ay dhacayaan iyo qabyaalad ay dhaqan u noqotay marka anigu marnaba kama qayb qaadan inaan ama wasiir ka noqdo ama safiir ka noqdo ama shaqaale ka noqdo dawladda kacaanka intaan xisbiga ku biirin mucaaradka ahaa hadee waxaan ahaa nin dawladda u shaqeeya muddo 7 sano waxaan ahaa hanti dhowre baan ahaa hadee kadibna markaan arkay wixii dhaafayay iyo inaan ku sii dhaxnoolaan karin waa isaga soo tagay xisbigaas markaan ku biiray hadee shaqo badan iyo mucaarad iyo waxaas oo dhan baan ku soo jiray kadibna waxaan ahaa mu'assisiintii dhistay Puntland 1998 magaalada Garowe marka 3 goor ayaan u istaagay madaxnimada Soomaaliya doorashooyinkii ka dhacay 2004 magaalada Nairobi 2012 magaalada Muqdisho iyo 2000 iyo kii hadda ugu dambeeyay February ahayd 17 saddexdaba meherin oo ma guuleysan waan ogaa inaan guuleysanayn sababtu waxa weeye waa parliamentary system one man one vote maaha hadee dhaqan waxaan noqday waxa weeye qofku inuu muxuu ahaaytay lacag bixiyo oo codkiisa uu ka iibsado xildhibaanada ka iibsado maadaama anigu intaas oo sano 40 sano ah aan mucaarad ku ahaa nidaam qaldan إيما عنتمن إن العقد بحيه أو عد قطه أو لالوش بحيه هذا واحد كده قال لما يفرتن سنوية مركا أوش يدا وحناها مرشحة كريه ديدي إنه بحيه بقول $1 بحد هالنقطة لالوش من ذكر وحناها مبدأ بموتي أو كل رقم كشرع الإسلام كا وأن أركي كل رقم كاس إنه يهاي مفتاح كريه والصومال دبك ay kaga bixi kadhaa albaabka kaliya oo furan mudana ka xiraa marka sharciyadaas aan u taagnaa baarlamaankuna lacag bay u taagnaayeen marka had iyo jeer lacagtii iyo mabda anigu aan u taagnahay baa iska hor imaanayay waxaan markaa door biday inaan mabda'ayga intaan noolahay ku adkaysto oo Ilaahay ku raali geliyo ummadda Soomaaliyeedna maalmaha kamid ah inay gaadho qaab ay ku kala magaranaysa qiimayso dadka siyaasiyiinta ah kii muxuu ahaaytay wadaninimada ka soo horjeeday oo shisheeyaha u shaqeynayay kii magaratay qabiilisa ahaa kii laaluushka bixinayay iyo kii nadiifka ahaa hadee waxaan rajeynayaa insha Allah taala waqtigeeda inay imaan doonto in muxuu ahaaytay la Soomaali ay kala garato wadaniga muxuu ahaaytay wanaagsan iyo wadaniga xun oo laaluush cunaha ah daawad yar waxa uu ahaa Xaaji Maxamed Yaasiin musharax madaxweyne ee Puntland waan filayaa in taariikhdiisa oo kooban
aad ka bogateen aan u soo noqono waxaad tiri waxaan ahaan jiray yacni inta badanba nin mucaarad ah mucaaradnimada ayay dadku qaybo kala duwan u qaadaan marka adiga mucaaradnimada aad ahayd ma mid aad nabad ku raadinaysaa mise waa mid aad yacni wax walba oo wanaagsan aad dhaliilaysay والله دي بني آدمكو وما درن إنه وحول بحن ودريله mana aha qaabka ilaahay subxaanahu watacaala uu jecel yahay qofka inuu u dhaqmo Soomaaliya siday u xorowday saa ka warqabtaan hadii 9 sano ugu horeeyay oo dowladda sibilka ahayd arday baan ahaa nin dhalinyaro baan ahaa waxaan la kowsaday tii kacaanka ayaan la kowsaday askar bay ahaayeen hadee nidaamkii meesha ka socday wuxuu ahaa nidaam حقيقة مركا أنا تضرب سنة وحن كاه أنت دوري بانها من اللي وطني هو ودن كيس شعره وحناها مقرتي لوجسو كوريي حال ميرت عنها مروري بوحن ديدي وحوي هجان أن مركا أمضى أن حريصا هجان أن إلهي كبقين هجان يمامل أن كسر شريعة الإسلام كا waxaan diidanaa caburinta wariga ma jecleen in dadka la caburiyo ama dhibaato loo geysto markii hanti dhowrahan ahaa hadii shaqadii markay socon weyday oo aan arkay dadna in la xirayo oo raad lagu yahay inaan xiro dadna ma garatay $100,000 haday qaataan maamulku uu markaa jiray muxuu ahaa ka helayeen garab taa waa in fiic weyday ilaa heer mar aan gaaro xataa la xiro markii ugu dambeysay oo fayral anu aan investigationkeeda anu aan lahaa markaan arkay in dadkii muxuu ahayd dambiilayaasha aan waxba laga qabanayn aniga la ii soo dhacay markii dambe kadibna shaqadu waa ka tagay marka mucaaradnimadeedii wixii ka dambeeyay midalan waxaan ka mid noqday xisbigii baan ka mid noqday SDF hadii markaan arkay maamulkii laftigiisu iyo qaabkii hoggaankiisa ninkii markaan madaxda noo ahaa Allahu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf iyadana waa ka hor imid hadii kadibna maxamed siyaad barre waa la sii wada soo arintu dhacaysay wixii ka dambeeyana waxay ay siyaasadda ma ahayn waxay iska ahayd dagaal shacbiga dhexdiisa ah oo aan nidaam ahayn wixii ka dambeeyay waxaan u mareynayaa qofka kaliya hadana aan magaranaysa mucaaradnimada aan kaga hor imid wuxuu ahaa Shariif Sheekh Axmed buu ahaa Cabdullaahi Yuusuf buu ahaa hadana madaxweyne noqday Xasan Sheekh Maxamuud iyo wax la mid ah kulligoodna qaabka anigu aan uga soo horjeeday wax kale ma ahayn way isku mid bay ahaayeen shariicada ma ay rabin muxuu ahayd qabyaalad baa meesha aad uga socotay musuqmaasuq cirkaas marayay hoggaan wuxuu madax ka noora ummadda aan u tureen wadan de khayraad laho ummadaas laho oo dib u dhacday hadee nin raali kama noqon karo hadee waa la yiri prime minister noqo wasiirnimo waa la fargaray safiir noqo la yiri wax dawladda la shaqeey marna raali kama noqon muxuu ahayd wax xun inaan ka qayb qaato hadduu ilaahayna gaarsiiyey sanadka 2019 waxbana nagama xigaan 2 bilood iyo 3 bilood naga xiga wax la mid ah adiga maxaad is leedahay Puntland waad ku soo kordhin kartaa haddii xilkaas ku guuleysatid ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii uu taagarto hadee wax badan baan isleeyahay ku kordhin karaa sababtu waxa weeye waay arag baan ahay wax badan baan u soo joogay sababtu waxa weeye dadka hadii la baratamayo da'an anaa ka weyn hadee muxuu political life-ka ama age-ka anigu aan hadda siyaasadda ku soo jiran waa 40 sano khibradaasi waxaan filayaa inay wax weyn tarayso haddaan hoggaanka qabto hoggaankaas oo ay noqonayso waxaan ka doodi jiro ka dagaalami jiray inaan anigu saxo baan jecelahay oo hadda wali jirta waxa kamid ah cadaalad darro bulshada Puntland waxay tirsanaysaa cadaalad darro marka qaar ku abiraahan hal dhowr qabiil baa isku wada bedelay iyo muxuu ahayd dadku ma haystaan cadaalad ma haystaan oo sinaan ma haystaan hadii ilaahay wuxuu rabo oo ugu weyn xukunka uu ka rabana wax kale ma waa cadli in ummadda ay hesho cadaalad inay hesho dadka waxa deeqa waa cadaalad ma deeqaan xoolo iyo magaranaysa kuraas taas waa mid labaad waxaan ahay nin ganacsato ah oo hantiilo ah oo muddo ganacsiga ku soo jiray Puntland waxay leedahay badda ugu dheer 1600 kilomitir bay leedahay badda Indian Ocean iyo Red Sea labaduba iyada kaliya baa iska leh waxay leedahay magaratay muxuu ahaa xoolo badan baa laga dhoofiyaa inkastoo ay ka yimaadaan inta badan gobolada kale
waxay leedahay ma garatay haraad ba intaa dadku ay sheeganayaan iyo biyo la dhaamiyo saad ka warqabto billa waxa weeye daad weeye oo dad iyo dunyaba iyo dhulba way xabaabiinaya biyo 12 bilood dadku waa loo dhaaminaya dagaalo badan iyo dhib badan oo dhacana waxay ka yimaadaan biyo la'aan bay ka yimaadaan biyo badanna waa haysanaa mid dusha maraya mid daadkaas oo kala mid rooba wax badan baan leenahay mid dhulka hoostiisa maraya hadda biyahaas in ma garatay si casri ah muddan hadda waxaan ka shaqeynay daraasada sida looga faa'iideysan lahaa biyaha iyada ah oo ma aha oo kaliya inay Puntland biyo hesho iyo dadkeeda iyo xoolaheeda inay hesho bal biyo badan baa la dhoofin karaa ilaa waxa lagu qiyaasaa 5 bilyan oo cubic meter baa biyaha Puntland ama badda ka yimaada ama ka yimaadaan cirka ama buuraha ka soo dhacaan ama dhulka hoostooda ha maraan badda ku shuba hadii 5 bilyan oo muxuu ahayd cubic meter taa on kaliya hadii la cabeeyo oo ummadda waxay ka faa'iideysan ka sokow iyadoo baa ku filan in la dhoofiyo oo laga faa'iideysto kalluunka sidaas oo kale kalluunka ugu badan baan leenahay mashaariicdan aad ugu fikiray marka waxa weeye garacad ilaa iyo laas qoray ilaa 8 meelood 200 kilomitirba in laga sameeyo ma garatay muxuu ahaa degaan kalluumaysi oo ilaa kun lagu bilaabo iskaashato oo dhalinyaro ah halkaasi waxaan qabaa waxa weeye in laga bixi lahaa faqri badan hadeer dhaqaalaha Puntland wuxuu ka soo garaa 70% dekada Boosaaso hadan dekada gacanta kuma jirto oo muxuu ahaa wad ogtahay dhibta ka taagan hadda waxa loo baahan wax alternative oo badila in ay Puntland hesho dhul baaxad weyn oo 212 oo kilomitir ah waa 3 meelood meel Soomaaliya weeye Puntland marka dhulka inta baaxad leh oo shacbi ilaa 4 milyan iyo bar ay ku nool yihiin 60 milyan oo dollar sanadkii budget ah ma ahaan ka dhol ma garanaysaa waxay ku noolaan karaan ama isku difaaci karaan Somaliland oo ka yar tiro ahaan dadka iyo baaxadba hadda miisaaniyada ka warqabtay waa 360 milyan waa 6 jibaar Puntland marka Puntland oo haysata dhulka baaxad leh oo kheyraadka leh oo gas iyo petrol iyo muxuu ahaa macaadin badan ay leedahay inay 60 milyan sanadkii oo dhan inay tahay budgetkeeda college America ku yaala xataa ku yararka xataa miisaanadaas mare marka waxaan ku soo kordhin karaa waxa weeye khibradeyda waa aragnimadeeda aqoontan u leeyahay ganacsiga iyo muxuu ahayd kobcinta dhaqaalaha 35 sano baan ganacsi anigu mas'uulka ahaa 5 sano shirkadeen oo shaqeynay waa dhacay markaan dalka soo baxay laakiin 35 sano maamulayay mashaariic aad u yaad oo weyn marka waxaan qabaa waxa weeye wajiga ay maanta leedahay Puntland aad baan uga bedeli karaa xagga horumarka dhaqaalaha haddana oday baan ahay oo kullay muxuu ahayd dhinaca midnimada iyo musaalaxada shacabka Puntland waxay u baahan yihiin oday bay u baahan yihiin maqaamkii iyo sharafkii Puntland ee lahayd soo celiya saad ka warqabto 4 madaxweyne baa ka horeeyay ninka la yiraahdo Cabdiwali oo kamid yahay Cabdullaahi Yuusuf Allahu naxariisto Maxamed Cabdi Xaashi Cadda Muuse iyo Farool Cabdi Farool afartaas waxay ahaayeen founding members dadkii dhisay oo ma garanaysaa muxuu ahaa dhigaha u ahaa Puntland bay ahaayeen odayaal bay ahaayeen oo xaqiiqatan legacy iyo taariikh ka tagay ownership bay sheeganayeen lahaansho sheeganayeen oo inay Puntland dhiseen sida anigoo kale Puntland mu'assisiinteedii baan ahay in yar ba hadda joogta mu'assisiintii SSDF oo dhashay Puntlandna hadda mu'assas baan u ahaa asaasiyaasha baan kamid ahaa golaha dhaxan kamid ahaa lahaanshaan dareemaya dadka kale oo murashaxiinta aysan dareemeyn waxbaan ku leeyahay ma garatay Puntland jiritaankeeda ilaalinteeda iyo difaaceeda iyo horumarinteedana waxaan aaminsanahay dadka inaan ka xigo marka wax badan baan ku soo kordhin karaa oo dhinaca amniga ah amniga waad ka warqabtaa Puntland waa gobolka kaliya ee Soomaaliya colaad ay ku hareeraysan tahay markaad fiiriso difaaca sida Muqdisho kale oo Amazon 20 kun oo ciidan ah ayaa jooga iyo 30 kun oo ciidan oo international community ay mushaar siiso Puntland ma laha Puntland koonfur colaad baa kaga furan muxuu ahayd caasimadda 30 kilomitir baa loo jiraa oo tukaraq iyo waxa ka socda wada ogtahay magaalada Qardho la yiraahdo xuduudda ay sheeganayso Soomaaliland waa 20 kilomitir loo jirtaa galgala dhalinyaradii shabaab haba haysata
oo maalin walba dhibaata ka dhacda gaarkaas oo dhan magaalada Boosaaso la yiraahdo ilaa 100,000 oo reer Puntland aan ahayn oo sheeyo dibadaha ka yimid muxuu ahayd Soomaaliya ayaa jooga oo security threat noqon kara xeebaha hadda Daesh baa joogta oo haysata qandaro iyo gaarkeeda oo dhan haddana cashuur ku soo rogay ganacsatada inay bixiyaan zakawaad ay bixiyaan marka waa meel lagu hareeraysan yahay weeye shacbigaas marka waxay u baahan yihiin waxa weeye nin dhalinyaro ah ama nin magaranaysa muxuu ahaa siyaasadda maanta ay ugu horeyso haddaan kooy ah ma aha meel uu ma garatay muxuu ahaa wax laga qaban kara ma aha meeshaasi waa inay yeelato sidee ururey u ahaan jirtay odayaal budhiga u ahaan jiray oo soo dhistay oo naf iyo maal iyo fikirba gashay ayaa ilaashan kara oo ummadda isu hayn kara midayn kara difaaceeda hadda waxa ugu weyn waa badbaado Puntland muxuu ahayd anigu shacaarkan leeyahay waxa weeye badbaadiyo barwaaqo macnaheedu waxa weeye Puntland maanta waxay u baahan tahay in la badbaadiyo jiritaankeeda baa khatar ku jira intii hadeer uu madaxda ka ahaa madaxweyne Cabdiwali Cali Gaas waxaas cadaawada intaas waa dhasheen oo aan hore u jirin awal koonfurta baa xoogaa jiri jirtay wiilasha kooban oo markaa shabaab joogan oo galgalana maxduud bay ahayd hadda kuwaas waa xoogaysteen ciidanka ugu tirada badnaa baa Soomaaliland meesha soo duldhigtay wad ogtahay waxay qabsadeen bishii January Daesh ma joogin ka hor Cabdiwali nabadgelyada Boosaaso maanta waxa weeye maalintii 2-3 qofood baa lagu diraa marka ammaankii iyo jiritaankii iyo masiirkii Puntland ayaa maanta wuxuu ku jiraa khatar aysan weliga soo marin marka waxa weeye waxaan aaminsanahay haddee mas'uuliyad gaar ah iga saaran sababtoo waxa weeye mu'asisiintii baan ka mid ahaa ownership baan dareemayaa waxa weeye markaad ilmo adigu aad dhalin aad korinayso iyo caruur adigu aad dhashay marka ay adigu hoos joogaan isku mid maaha anigu Puntland wax gaar ah ay tahay waxaan aaminsanahay karo Puntland hadday nabad noqoto maamul fiican iyo hoggaan fiican in hadduu yeesho in Soomaaliya inteeda kalena ay wax ka tari karto Xaaji Maxamed Yaasiin inta badan siyaasiyiinta Soomaaliyeed markay siyaasadda soo galayaan siyaasi walba balayn buu wataa ama qorshe u gaar ah haddana qaarkood waxay dhahaan waxbaan ka qabanaynaa meesha u tartamayaan siyaasi walba maadaama uu sidaas yahay adiga haddana waxyaalaha ay dhahaan waan qabanaynaa waxba ma ka qabtaan inta badanba oo dadka shacabka way ku hingoobaan marka adiga kuwaas maxaa uga duwanta waxaan uga duwanahay dhowr arrimood kow haddee nin la yiri 40 sano ku soo jiray halgan siyaasadeed oo isagu wixii xumaa dhacay aan ka qayb qaadan oo mar waliba diidayay oo u soo taagnaa in la saxo qaradaadkaas hadda waa nin muddo adag oo horta waxa weeye in la xisaabtamo weeye waana ku lahaa political age waxa la yiraahdaa jira ninka maanta ay ugu hortahay siyaasadda wuxuu rabo ku hadli karaa laana record hore oo loo raadiyo mabalba buuraan waxaan ka dhigayaa dahab dariiq baan waxaan ka dhigayaa diamond waxbaan nabadeynaya nabad muxuu ahayd horumar amni waxbaa qorqoran laakiin waxa weeye maxaad horay u soo ahayd batal dadku marka hadda waa laba nooc murashaxiintu mana rabo murashaxiinta walaalada inaan hoos ugu dhaadhaco ninay ku cusub tahayba oo hadda yara ay cusub tahayba leh hadda ninka cusub wixii la mid tahay diyaarad Boeing ah nin yiri passengerkeeda iyo anaa inta hore fariistabaan iska anaa kicinay hal lagu hadlayo hadda naf baa taal meesha iyo hantiba taal maxaa see lagu hadlayaa haddaabad cusub tahay ninna waxa weeye nin la soo tijaabiyay oo soo fashilmay waa oo ninkaasi criminal weeye anigu waxaan qabaa kaas in maxkamad la soo istaajiyo maba ahaba inuu ummadda hor Soomaaliya inuu soo hor istaago ma aha laana waxa weeye inta loo dhiibay buu diyaaradii la dhacay oo iyadii burburiyay oo iyadii baraheedii iibsaday dadkana ku dhaawacay ku baabeeyay ka in la yiraahdo marka waxa weeye siyaasi hadama kaas waa dambiilay baan u haysay inuu dambiilay yahay marka anigu waxaan kaga duwanay waxa weeye koow hadda 40 sano mabda adag weeye oo qof lagu tijaabin karo waxaan noqon karay prime minister hadaan madaxweyne xataa noqon wasiir baan heli karay safiir baan heli karay la taliye madaxweynaha heli karay baac mushirkaygaan ku xiri karay Soomaaliya oo kontraktooyinkii Soomaaliya neef qaran buu ahaa 30 sano hadda 30 sano nin walba waxbuu goosanayay cad buu goosanayay hadda cadkii anigu ma goosan cadkaasaan
ka dagaalamaya in la goosto oo dhaawac loo sii geysto marka mabda'aygu 40 sano nin mabda'iisu intaa u adag yahay haddii la helo oo ama ii soo dhawaada diyaar waxaan waa inaan hormariyo isaga oo ilaa adigu qabo muxuu ahaa hogaanka labo sharciyada islaamka ayaan 3 goor u istaagay oo leeyahay war ilaahay aynu u noqono kitaabkiisa aan ku dhaqanno awaamirtiisa aynu raacno aynu hufnaano war aynu qabyaalada joojino war wuxuu ilaahay nacab yahay hala joojiyo waxaasoo idil baa aniga mabda'i ah haddii anoo maanta anoo 20 jir ahaan siyaasadda galay maanta 60 baan jiraa iyo in ka badan suuragal ma tahay cimrigaygiyo gabaabsiya inaan ku hadlo waxaan ficilkeeda aan diyaar u ahayn lima taquluna ma la taf'alun bi ilaahay leeyahay kabara inda allahi maqtan an taqulu ma la taf'alun war dambi ka weyn miyaa jira waxaad leedihiin oo idin ficilkeedna idin la imaanayn marka anigu waxaan qabaa mabda anigu aan haysto nin walba ka carra nin kastoo marashaxa intii election oo dhacay bal dib u raac keligii baa taagnaa maxaa looga cararayay qofka wuxuu rabaa inuusan ilaahay dambi ka galin laakiin shacab ka galo ma oga inuu ilaahna ka galayo sharciyada qaad haddaad tiraaho xaajow adiga keliga qaadaba ku leeyahay anigu muxuu ahaa markaan qabto dowladnimada oo baan xoogaa wax bilbilaabi doonaa laakiin hadda sidaadoo kale lama soo istaagayo kuwana dhiiranaanayo marka ninkan ku dhiiran shareecada oo ilaahay awaamartiisa aan diyaar u ahayn ma ummadda u naxaya ma xoolaha ummaddu badbaadinaya ma cadaalad buu faraya ma qabiilku iyo exdu ka tegayaa maya marka anigu waxaan kaga doonaa waxa weeye mabda anigu aan haysto oo aan ku dheganahay oo 40 sano aan ku dheganahay baaxin daab iyo ah isaga xiraya isaga wuxuu yahay mid ma garatay aan ay ogolaanayn inaan hadal anigu aan ficilkeeda sameeyeen inaan anigu aan ku dhaqmo marka waa kaga duwanahay mideeda labaad waxa weeye nin baa xuranaya mashaariic baan sameynaya oo hore ma u sameeyay horta shaqadaas in mashaariic la sameeyo ma baahayna hore ma soo sameeyay mashaariic anigu marka mashaariic waaweyn $100 milyan baan soo sameeyay oo 40 sano ah hadda magaalo yar bay anigu ii tahay marka Puntland dhul yar buu ii yahay marka loo eego waxaan ka qabanayay mashaariic aan qabanayay marka experience anigu aan leeyahay iyo xiriir ballaaran oo aan adduunyada la leeyahay xagga ganacsiga ayaa ii suuragelinaya wax badan inaan qabto oo hadda mashruucan ka hadlay kalluumaysi oo kale maalan ah waxaan qabaa $30 milyan baan ugu talagalay meel waliba 8 meelood oo $240 milyan ah iyo $10 milyan infrastructure labada 150 kaas waxaan aaminsanahay inay sanad waliba inta ay inka badan ay keenayso laana waxa weeye qaabkan rabo in wax loo sameeyo ayaa wuxuu yahay wax tar weyn u noqonaya dhaqaalaha yar oo ka soo galaya tikada boqol jibaarkeed ayaa waxaan aaminsanahay inuu halka ka soo baxayo xoolihii baan rabnaa inaan iyadoon u sameeyno degaano ilaa iyo 1 milyan oo neef inaan ku bilowno oo muxuu ahayd ariya iyo ido waan ogtahay sanadkii 2 goor bay muxuu ahaa dhalaan arigu iyo idooba marka waxa weeye inaan taa ka shaqeyno waxa noo dhow khariijka baa noo dhow ilaa $160 bilyan bay ku talagaleen waxa la food security 10% haddaan ka helo waxa weeye 16 bilyan weeye ayaan halka uga dhigayaa wax allaare wixii ma garanaysaa ama xoolo ha noqdaan ama digaag ha noqdaan ama kalluun ha noqdaan ama khudaar ha noqdaan wax allaare wixii anagu aan sameyn karo baax dhulkaas weyn oo aan leeyahay iyo biyahaas iyo baddaas waxaan aaminsanahay waxa weeye haddaan petrol iyo gas iyo macaadinba faraha kala baxaba waxaan aaminsanahay waxa weeye inay noqonayso meesha ugu horumarsan ugu dhaqaalaha badan iska dhaaf wiil ma garanaysaa muxuu ahayd ama gabar reer Puntland inay shaqo weydo laakiin 100,000 oo Soomaaliyeed oo kale ama shisheeye inay u soo shaqada ka doonaan marka taasaan kaga duwanahay rag badan oo ila bartamaya dadka reer Puntland ama dadka Soomaaliyeed ee aad hadda Puntland u taagantahay masharaxnimadooda maadaama aad tahay nin ganacsade weyn oo inta badan Soomaalidu ay aad u taqaano haddana doorashooyin badan ka qayb galay marka hadda ganacsiga kale ka hadlayso laguma fahmi karo inaad tahay qof yani ganacsi raadis ah soo kuma fahmi karaan dadka maya oo wadankiisa raba yani qof raba inuu wadankii isagu dhaqaale ka samaysto laba arrimood bay diidaysaa mid waxa weeye si diinta oo shariicadii baan anigu muxuu ahayd rabaa inaan dalkii ku dhaqo oo aniga model noqdo
labo mushaharba inaan qaato maba doonayo adigu waxaad ka hadlaysaa ganacsi weyn inaan wax ka xooleysto waxaan diyaar waaya mushaharo ummadaas reer Puntland inaan kaba qaadanba horena u sheegtay Soomaaliya mushaharo anigu aan qaadanaya maba jirtaba xoolahayga ayaa igu firan inta ilaahay muxuu ahaa doonaysan igu haynayo ganacsiga dadku ay ka faa'iideystaan waa jira hadda madax muxuu ahaa mesela 40 maraakiib baa ku jirta oo leeyahay madaxweynaha iyo rakara wax ku leh badda jariifayo oo boqolaal maraakiib baa ku jira oo badii baabi'inaya badda Puntland baan ka hadlaya badda Puntland waa tan ugu dheer uguna kheyraadka badan weeye marka wax kasta oo maanta mushahaaradii waxa la leeyahay shaqaalaha oo meel hadda ka baxday aan la ogeyn sida ka warqabsanka ugu dambeeya oo nin kastoo madaxweynaha markuu galayo orale siyaasadeed markuu galayo hadda mushaharo lama bixiyo anigu marka kaas waxaasoo dhan waxaan doonayaa wixii hore u dhici jiray wax ka duwan in maamulkayga lagu arko anigu haddaan mushaharo naftayda ka joojiyo haddee nin kale oo wax dhici karaa ma jiraan hanti dhowran ahaan jira waa aqaan tuug wareegso wuxuu dhaca waa aqaan halka laga qabtana waa aqaan marka baaca musharka anigu aan rabay inaan hormariyo haddee model aniga nabi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam maalintuu dhimanayay ummadaasi ummad waxay ahayd horumartay bay ahayd haddee wax lacaga uu ka tegayna ma jirin anigu waxaan ka tegay waa waxaan hadda anigu aan haysta waa haddaan carruurtay wax uga tago laakiin waxaan ka kasbo Puntland haddii anoo madax bannaan haddaan iska dhowray xoolaha ummadda inaan qayb ka qaato hadda yaa iga hortaaganaa 40 sano inaan badda jariifo mashaariic meesha la tago ummadda aan waxooda dhaco nina ima qabsadeen ganacsataan ahaa 40 sano inaan Soomaaliya ganacsi ka dhex sameeyo baan anigu iska xaraameeyay ilaahna way xalaaleeyay maxay ahayd inaan ka qayb galin ummadda Soomaaliyeed burburka lagu hayo oo xoolahooda la dhacayo la baabi'inayo lan ummadda Soomaaliya ogoon bay noqotay ay taam waay marka ay taam xoolaheeda inaan ka qayb qaato hadii suuragal maaha sida awgeed anoo banaanka joogo haddaan ka qayb qaadan waaye anoo mas'uul ah oo raba inaan ka tago taariikh aan hore u dhicin hadii suuragal maaha inaan anigu muxuu ahaa ka qayb qaato boobka ummadda lagu hayo xaaji yaasiin waxaa jira rag badan oo musharaxiin ah haddeertan Puntland u taagan 2019 raggaasi maxaad isleedahay waad uga duwan tahay adiga oo aad dadka reer Puntland u sheegaysid hadda ku sheegay wax badan baan uga duwanahay koo waxaan ku yiri xagga waay aragnimada 40 sano oo khibrada baan leeyahay ninka ugu badan hadda aniga ila baratamay haduuba soo galaba waxa weeye ka soo qaba muxuu ahayd ninka la yiraahdo Cabdiwali Cali Gaas oo hadda madaxweynaha political life kiisu waa hal sano oo prime minister ahaa iyo 5 sano hadda madaxweyne yahay 6 sano weeye hadda wuxuu qabtay iyo wuxuu sameeyay iyo wuxuu faa'iido keenay iyo wuxuu dhimay ummadda og taariikhda way sheegi doontaa waxa xiga Umar Cabdirashiid oo kale mesela 2009 buu jimay 9 sano way cimriga politicalka uu ku jiro koor oo yidii magaranaysa korsanaysa buu ahaa ama shaqaysanaya buu ahaa oo aan siyaasad ku jirin ragga kale oo dhan sanad iyo waxba ay ragga inta badanna maba ayaan soo galinba siyaasadba horta taa muxuu ahaa khibradda ah waa aragnimada ah waa kaga duwanahay waxaan kaga duwanahay oo kale muxuu ahayd aniga ku sheegay ku xisbigii ka dhashay Puntland wuxuu SDF buu ahaa oo naf iyo maal iyo waqti soo galisay iyo difaaca dadka hadda muassis baan ka ahaa asaasiyaashan ka mid ahaa Puntland dhismaheedii asaasan ka ahaa oo ragii naf iyo maal iyo waqti gashay baan ahaa 3 goor baan murashax ahaa iyagu ma soo noqon 35 sano ganacsato ahaa iyagu ma soo noqon intooda badan farta sano mucaaradka laftigiisu iyo siyaasadda aan ku soo jiray khibrad weyn weeye xiriirkayga dibadda aan ku leeyahay mid ganacsi iyo mid dawladaha aba oo muddadaan banaan ku noolaa iyadan wax weyn weeye oday baan ahay muxuu ahayd hadda raba ummada musaalaxadooda iyo midnimada inuu ka shaqeeyo ixtiraam bay mudan tahay Puntland karaamadeeda iyo sharafkeeda waxa weeye calanka Puntland qof qaadi kara loo baahan yahay oo taariikh leh oo ummadda taariikh ku leh anu hadda radaan madaxweyne farmaajo u tago hadda waa nin ii saagayo waay oo miisaankaygu igu ixtiraamaya gobolada kale sidaas oo kale weeye
nin sanad ahaa muxuu ahayd siyaasad ku jiray ama 2 sano iyo maqaamka Puntland ee leedahay waa arrin kale weeye isimada oo dhan hadda kuwa jooga oo dhan aabayaashood baan anigu la soo shaqeeyay oo ka horeeyay iyaga khaasatan markii aan dhisaynay muxuu ahaa Puntland ixtiraam bay muxuu ahaa xaggooda aan ka mudnahay oo mid marka loo fiiriyo aabahood xiriirka anigu aan la lahaa ha noqdo boqor burhaan islaan maxamed islaan ciise islaan saciid islaan muxuu ahaa bashiir kulligood islaan ugaas muxuu ahaa xasan ugaas yaasiin muxuu ahayd hadda wiilka awowga u noqonayo ugaas baldaaj cabdullaahi awayaashood iyo aabayaashood baan anigu la soo shaqeeyey oo la soo halgamay oo la dhisay muxuu ahayd Puntland ixtiraam baan ka mudnahay nin hadda yimid oo cusub haddee maxay ku wada hadlayaan baa taal shacbiga marka dadka waa kala yaqaanaan Puntland marka miisaan waxay leedahay maadaama hooyadii ay tahay federaalka xurmo gaar ah leedahay marka xurmadeeda gaarka hoggaankeeda mar walba waxaa u tiran jiray nin 60 sano ka weyn oo naf iyo maal iyo waqti soo gashay fikir Puntland ilaa cabdiwale ma ahay oo xaqiiqatan muxuu ahaa choice kuma imaan wuxuu ku yimid chance buu ku yimid sida biixi oo kale مثلا wuxuu ku yimid chance buu ku yimid 4 sano ku horeysay niman budligayaal bay ahaayeen oo Soomaaliland soo dhisay marka waxa weeye Puntland maqaam gaar ah ay leedahay hoggaankeeda marka anigu waxaan aaminsanahay waa inuu mudan yahay qof taariikh leh miisaankeeda leh akhlaaqiyaadka insaankana leh personality leh ayaa mudan inuu maanta dhibaatada ay ku jirto Puntland inuu wax ka hogaamiyo oo qabto marka wax badan baan waaladay xagga siyaasadda aabaan u noqonaya ama awowaan u noqonaya hadii political age ka hadii la fiiriyo marka wax badan baa noo dhaxeeyo farqiga intaas khibrada adiga oo iska leh haddana yacni wax qabad badan ama business waxyaalo badan sameeyay maxaad isleedahay way kaa hortaagan yihiin inaad guulaysatid inta badanba doorashooyinka isku soo taagtid waad ku dhacdaa maxaa sababa marka waxaan ku yidhi 3 goor hore lacag baa la bixinaya supermarketka hadda noo dhow halka kan oo kale taska dhila haddaad gasho oo sonkor iyo bariis iyo muxuu ahaa ka soo urursato mooranaysa xaaji yaasiin baan ahay muxuu ahaa oday alla ixtiraamo oo intaa liida miyaa laga goranaya ma halka waxaa joogay 275 tii ugu dambeysana senator raaba la keenay guriga sare oo ilaa 54 329 xildhibaan oo xildhibaannimadooda ku soo xiray lacag kula yimid baa ku soo ag fariisanaya wuxuu ku leeyahay anagu madiyuun baan nahay barnaamijkaaga mabda'aaga waa okay oday baa tahay raalli baan kaa nahay laakiin lacagti bixi anna waxaan leeyahay lacag kuma iibsanayo aakhiradayda mana ogoli horta sidaasaan muxuu ahaytee maxaa dadka iga hortaaganaya tan waa mustaqbal 2 bilood baa ka dhiman iyo 3 bilood meelaha waxaa iga hortaagan haddii ilaahay uu suuro geliyo calaf cimri caafimaad 3 gacanta ilaahay bay ku jiraan oo mid anigu aan hadda hayo ma aha laakiin 80-90 waxaan aaminsanahay haddii ilaahay intaa isiiyo inaan guuleysanayo baan aaminsanahay cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha Puntland hadda xilka hayo mashaariic badan buu sameeyay ay kamid tahay aylaboorka iyo wadooyin uu dhisay ma aaminsantahay inuu wax u qabto Puntland haddana saas ay tahay dadka shacabka ah ay reer Puntland deegaan ka soo jeedo inta badan ba wax qabadkiisa ma arkaan marka adiga maxaad ka aaminsantahay cabdiweli cali gaas waa madaxweyne hadda wali madaxweyne weeye anigu horta ma rabo inaan shakhsiyadiisa iyo wuxuu sameeyay iyo inaan u abtiriyo ma doonayo oo akhlaaqiyadka noocaas malihi laakiin waajib waxa ummadda Soomaaliyeed inay ogaato reer Puntland ay og yihiin marka loo eego cabdiweli wixii laga sugayay oo laga filayay nin dhalinyaro ah oo mutacalima oo prime minister soo noqday oo ummadda intuu soo istaagay la aaminay hadalkiisii la aaminay wuxuu yiri waxaan qabanayaa waxaan ahay nin xoolihiisu iyo dhaqaalihiisu ay ku firan yihiin xoolaha mushaaradan qaadanaya way ugu firan yihiin aniga caruurtayda hadda 5 sano in isku fileen baa la ogaaday oo waxba hanbaynba xaqiiqatan
dhib badan buu u geystay xaggii ummad saboola oo hadda muxuu dhaqaalaheedii uu iska wada 60 milyan uu yahay wad garanaysaa cabdiweli dib u dhac weyn buu sameeyey makiinad buu keenay lacaguu daabacday wuxuu ka qayb galay waxyaabo tiro badan jariifka hadda aan kuu sheegaya iyo tan aad leedahay mashruucyada uu sameeyena waa ka xumaay xaqiiqatan in sidaa loo qaato waa mashaariic ka horreeyay isaga mid ka timid dakhli Puntland ma jirin waxay ahayd mashaariic naloogu yaboohay bay ahayd airportka muxuu ahaa Boosaaso ka mid ah waa airportka waa fiican yahay laakiin waxaan lahaa isagoo kale oo Harvard University ka soo baxay jaamacad associate professor ka ahaa aqoonta leh waxaan qabaa waxa weeye waa fiicnaan lahayd inay iswaan doodno laana waxa weeye anu entrepreneur baan ahay nin ganacsata ah oo muxuu ahayd 40 sano tajrubo soo galay baan ahay isagu book buu akhriyay dhalinyarada book buu textbook buu wax uga akhrinayay anigu kama bilaabeen meeshu ka bilaabay xataa kuwii ka horreeyay airport bay ka bilaabeen airportka Boosaaso 20-30 milyan dollar baa ku baxay maanta 3 diyaaradood kuma soo degto من $300 هذا تراه landing fees كوي وأكون $1 قبلها كشقي شقالها كون نظافة يواردها كون في الله وح ماركتينج هو لو سميه ما جرتو وديعني هي إيربوركو وحبك كمان سودان وحنا كمان دوران هذا أنا وحلا وذا ودمانة كي جروه وح فان لو قلت سيئون بيسكاهي وح براكتيكال ما هين هدول دقارها وحكي قان وحورن لها وحان هي سنة هنتي محاوين محاوين كلونك كل 600 كيلومتر 1 تريليون 3 تريليون بالمو قيمية كلونك إلى هي سنة كان السيئة ومشيان إلى $1 بليون بالرعاة مو يدا قبل عابو إنه هرمري وبرنامج قانون هذا الربو إن شاء الله أنا وحقبته وحوي إيربور مرن طريقة ديرو هذا للي طريقة هلا سمي طريقة هلا سمي طريقة هلا سمي كون كيلومتر بالي هلا سمي كون كيلومتر من بوساسي لا قال قاعد كسمي مش أدونس كسمي ما أنتي وحصو مرايا كنتم بابور أما صدم بابور بس مريسا حداد من $100 كقعد صدم صدق كون $1 حتى الأوريو dadka qabanaya lacagtaas kama badna maxaa dhaqaale oo ninkii dhaqaalaha yiri waxbaan aqaan hadda mashruuci ugu dambeeyay oo ahaa dariiqa garowe gaalkacyo ahaa wad ogtahay wana lagu yabohay iyada intii yareed baa la hunguriyay oo aan ku ceebownay oo hadda la joojiyay ceeb ka weyn ma jirin marka waxyaabo badan oo iska monumental ah oo white elephant in Ingiriisku yiraahaan wax muuqdo weyn laakiin aan wax tar lahayn oo la sameeyay baa jira أنا وحنا وحوي إن لو يديو شان سنة إمس قفوت بعشقه شيء جامعة ده واحد كسب حي كمانان كم بقى كسب حي سكندري واحد كسب حي كمانان كم بقى كسب حي بدي كل معدين سدح مشروع بقى لغير قريب صدق كي سنة هذا بربركا إنه نهيسي جارهان 14 سنة وهذا بلدان شرته سدح لليرد وقتها بقول سيدي شغل ما يسان صدق مشروع بقى لغير قريب تورو دقمة ولا بعد كيريس كو وحلقيه لي عسبتالك تبركلوسيسك لأن يرى قفك سكوبوق أو ستريس كله قاجوده أو قفع كبلوده اللي هو قفك وكل عياء عسبتال بكلين وميلور لي كلينيك تبركلوسه لابو عسبتالك والد ميل ولا واحد كيريسه دقمة ولا بوحة لقى سمي نلاقو جباهي عسبتالك والده ويا وارنا يا عسبتال لقينا يا محوها عسبتالك وهذا نيردي لبعتين شركة هوا أنت ستريس كل عاي قاعد وريري ومحوها قاعد جوضي مركي وريران وحلو سمي يميل والده كين لقسيه ولسي بابيه إيوه حبسيه تقمان حبسي لهين مشرته مشروع وين بالنقطة حبسي ذا يا حبسي رلقيا ولا نيردي maxaa tuberculosis iyo waale iyo xabsi keenay maxaa lagu sameeyay mashaariic ardadu iyo dhalinyaradu ay shaqo ka helaan ma jirto waxa lagu socdaa waa ganacsato canshuur badan maalmo laga qaado haddana zakawaad iyo khasab lacag looga qaadayo oo cararay oo meel kale aaday Cabdiwali ilaahay muxuu ahaa dambi dhaaf ha siiyo dib weyn dhaawac weyn buu u geystay muxuu ahaa aqoontiisii iyo amaanadii la sugayay iyo waxa maanta ay ku sugan tahay Puntland haday 3 bilood soo socdo badbaado oo is burbur ka badbaado
ayaan waxaan qabaa waa nasiib badanta maxamed yaasiin inta badan ba musharaxiinta Soomaaliyeed marka ay xilka ay ku guuleystaan ee madaxtinimada raadinaya hadda Puntland waa ogeyd Cabdulle Maxamed Cali Gaas iyo waliba Faroole iyo adiga madaxweynayaasha ku horeeyay qof kasta wuxuu la soo shirtagay ama meesha qodbadiisa kamid ahaa in Puntland ay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah maxaa hortaagan ba islaada ilaa haddana mayna dhicin adiga se haddii aad ku guuleystay xilkaasi maxaa ku qorshaysan wuxuu dhici wadaan ku sheegay simply in la lushku yimid ilaahay wuxuu aayad quraan ku leeyahay inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin mufsid amal uu sameeyay inaan lagu liibaanin baan ballan qaaday bir hadda ballanka uu qaado qof mufsid ah isagoo ku yimid corruption kuna dhaqmaya corruption oo u yimid meesha inuu calooshiisa buuxsado mid wada soo caataaba imaanaya isagoo buuran oo ka tagaya ka baxaya meesha hadda ma kula tahay barnaamijyada uu wato ilaahay inuu suura gelinayo oo ay noqoto wax ummadda ay ka dhaxasho ummadda ay ku liibaanto barito loogu duceeyo leeyahay wallahi bal waxa soo sameeyay waxa weeye labada sano ugu horeysa wuxuu raadinayaa marka hore wuxuu la imaanay vision team wato oo madax ka nool waa kaligi isaga lacag baxsaday waxa kana aniga 5 sano kreesib ku oranay isaga haysta wuxuu rabaa isaga sameynaya laguna tagamayo markuu arko 2 sano inuu wararsan yahay oo wuxuu qabanayo uusan jirin sanadka saddexaad wuxuu bilaabayaa lacag urus inkastoo hadda bilaabeenba day 1 ay bilaabeenba marka lacag urusigi wuxuu leeyahay dadkuna ay ku kacaan oo yaraninku amaanadii waa lumiyay waxna looma qaban oo dacayadu ay badato marka wuxuu leeyahay wanayahow haddaan xisbiga isku sameeyo waxay ka soo horbaxaya dad badan oo iga hor imaanaya dad badan oo mucaarad ah tallaabo kastoo aan qaado waxba laga sheegay waxaan maqlay maalintii ugu horeysay Cabdulle yimid rag baa la taliyay oo yiri haddaan bilowdo marka hore isagoo waa jeclaabaan baa la sheegay inuu axsaabta iyo wax ka qabto iyo doorashada iyo marka waxa la warheede haddaan ugu furin haddaan ugu furto mucaarad baa maanta bilaabanaya tallaabo ma qaadi ka dhig sidoo maalba dib ugu dhiganay oo muxuu ahayd maalba god ugu sii dhacay oo sumcadda uga sii baaba'ayso ayuu marka dambe wuxuu leeyahay maanta aad ka sumcad liidata maanta aad tinay haddaan mucaarada ma furi ka dhig sidoo u socdo qofku waqti baa ka dhamaanaya ilaahna ugu talagelinba marka hore inuu ku aflaxaba oo ama ku liibaano ama uu sameeyo shay ummadda muxuu ahayd barito ay ku amaanto marka anigu waxaan qabaa waxa weeye daacad xun waa ilaah qofkaan mar hadduu ilaahay ka baqayn ummadda u naxariisanayn codku waa ammaano ummaddu inay xaq u yeelato inay adiga wax kaa sheegto wax xaqay leedahay waa ammaanadii ahayd inay cod dhiibtaan oo qofka ay doonaan muxuu ahayd iyagu ay muxuu ahaa doortaan wax xaq iyagu ay leeyihiin wax xuquuq iyagu ay leeyihiin waa ninka kan laaluushka ku yimid qabyaaladda ku yimid oo shisheeyaha soo kareysteen qofkaasu maba wax fiican ma sameyn karaa aniga maxay qorshaysan aniga ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan rabaa xusn khaatima waxaan rabaa ummadda inaan legacy uga tago wixii u qabsoomi waayey baan u doonay inaan qabto kuwa maxaa u qabsoomi waayey cadaalad inaan cadaaladda keeno maxaa u qabsoomi waayey multi party systemkii inaan keeno xisbigii muxuu ahaa dastuurka muxuu ahaa maxkamadeedii inaan sameeyo in aan dadka u diyaariyo muxuu ahayd one man one vote day 1 maanta ugu horeysa inay waxooda diyaarsadaan dowladda ay gacan ku siiso axsaabtu inay bilowdo aniga dowladdeeda inay wax ka sheegaan laana waa kobcayaan dadku waa bislaanayaan wacyigelin badan bay helayaan dimuqraasiyada iyo wax la sheegaya bay baranayaan oo doodda ka qayb galayaan aniga waxa ii muuqda waxa weeye raggii hore wixii u qabsoomi waayey dhaqaale inay abuuraan oo ummadda tan ay hinjiyaan oo kor u soo qaadaan waa waayeen raggii igu horeeyey waxaan rabaa taa inaan qaato cadligii sidaasoo kale ku dhaqankii shareecada islaamka macnaa waxa ii qorshaysan ilaa 7 tiir baan ku magacaabay 7daas tiir ee noqdaan wax ka duwan wixii hore raggii hore waxay ku feelgaroobeen waa dacad la'aan ilaahna kuma ay xireen ilaah ku cirashada ma salaada kaliya ma ilaahay iyo adiga waxa ka dhaxeeyay sharcigiisa inaad u fiso
ummadda cadaalad farto nin waliba wuxuu keensaday 100 wiil oo adeer u yahay xafiiska inuu uga shaqeeyo madaxtooyada 100 wiil ay banaanka joogaan waardiye u yihiin maxaa qoys boqortooyo yar baa nin walba sameeyay anigu taa waa ka soo horjeedaa anigu waxaan rabaa inay madaxtooyada noqoto muraayad ummadda ay iska daawato oo reer waliba uu samarti ku ahaan macna cadligan halkaas ka bilaabanaya waxaan rabaa jifada ugu yar iyo tan ugu weyn hortayda inay u sameeyeen oo aan hore u dhicin boqor buu noqonayaa ninka maantii madaxweynaha meesha ka noqda anu inaan boqor noqon laakiin inaan noqdo adeega inaan noqdo ummaddu ay ku tashato wixii hore wax ka duwan baa noo yimi kalsoonida shacabka inay soo noqoto midnimada inay soo noqoto waxaan rabaa wiilasha tan dagaalka kula jira dowladda oo shabaab la yiraahdo iyo daacish anigu waxaan murashaxa kale xalka u haya lana mar haddaan shariicada islaamka xukumo waan xukumayo anigu qaabkan iyaga ama ku heshiin lahayn ama qoriga uga dhigi lahaa ama uga adkaan lahaa baa imaanaysa sababtu waxa weeye sharci islaam baan haystaa ugana horeeyana iyaga taariikh ahaan marka la fiiriyo wax badanna waa ka sheekeeyay wiilashaas anagu naga mid oo ehelka oo caruurta iyada ah anigu inaan xabad isla taagnaano maalin waliba oo anna wax iga diraan anna iyaga aan laayo ma imaanayso 2 sano haddaan ku hagaajin waayo xagga amniga Puntland ruqsad baan keenay hal wiil oo qori haysta hadii la arko 24 months 24 bilood marka la joogo qori qof haysta oo dowladda ka soo horjeeda haduu jiro ama xeeb ha joogo ama boor ha joogo ama bariga ha joogo haddaan amniga sugu waayo ballan ilaahay waxaan ku qaray inaan ruqsad deeyo marka waxa weeye arrimahaas oo dhan oo tirarka todobada ah ayaan aaminsanahay in ay suuragelayaan haddaan xarigga ilaahay qabsado ummadana ay qabsadaan ilaahay baa inta kala fududeyna insha allahu tacaala tiri يعني رجعن كده قال ما الصومالي سيدا الشباب يداعش وكله حل بانو هيا حل كينا ماذا الشيء معناها حل كأدوه يسمحيه قلت أنا كان محكو قال ما يوم لأن يرد مركي بلعبين محاكمته لابد يكون اللحدي محاكمته والكور قبتها لح بلود بماموريين مقدشو النقطي مقرتي بهالقرين نقطي ومضي عاصمتها إيه بربرتي قبيل السلايي ظلمي وجبدان أو خدعي كفسي جبدان أو خدعي قح وجبدان أو خدعي هذا الواجب هذين لح بلود وهذا جيد وحي قبتين محاكمته الدون كوردن بمرخاتك النقطة أمن جيب السجن لح بلود جذهود شان يتو مثلا السوق كرواي الدون كوردن السجين وحي فرين إيربورك حراء شان يتو مثلا وحي فرين دكدي بفرين أمان كيبي السجين وحي قعنت كو قبتين أو أي محوها هيتي وكسرين ويكأتكارين شان يتو مثلا رجع وورلوس كهابي السماية nimanka kan markii dambe oo wanaagooda la arkay oo sharci islaamku sida wax u shaqeynaysa la arkay baa waxa la yiri waxaan wax soconaya maaha hadii waxaanu sii fidaan oo ay socdaan Soomaaliya kaliya ma joogaysan way sii soconaysaa marka hal qabto waasaas Itoobiya soo gashay hadii wixii dhacay baa dhacay dhalinyarada marka waxa weeye way ka baxeen raggoodii madaxda ahaa waxay raaceen Itoobiya iyo wixii kale oo ay ka dambeeyay Mareykanka bay raaceen nimankaana marka waxay noqdeen dhalinyaro aan hoggaan lahayn bay noqday ka carooday wanaagii ay sameeyeen in loogu bedelo dil iyo dagaal iyo ciidan shisheeye nimankaana marka mabda'ooda markaad fiiriso 3 shay bay ka dagaalamaan hogaamiye la soo kareysay oo lacag la soo siiyay oo ku yimid madaxweynenimo lacag uusan lahayn oo shay ay soo dhiibteen labo waxay aaminsan yihiin waxa weeye shariicada islaamka in laga hortaagan yahay in dalka lagu xukumo 3 waxay leeyihiin ciidamo shisheeye jooga dalka oo loo soo adeegsaday dhiigayaga dalkana inay muxuu ahaaytay qabsadaan marka dambe oo ay boobaan hantideedana ay boobaan wadankana ma doonayaan inay ka baxaan nimankan marka mabda'aasay ku haystaan marka anu mabda'oodii baan waxaan leeyahay dhalinyaro mabda ugu horeeyo Soomaa aha nin la soo kareystay waa diidantii aniga lama soo kareystay cadeeya in la soo kareystay 3 goor ana quraanka u taagnaa lacag anu aan leeyahay baan bixiyaa laaluush lama bixiyo xoolo shisheeye soo siiyana ma jiro waxaan hay siyaasi kaliya murashax kaliya oo aan shisheeye u taagnayn
waan wakiil ka ahayn oo gadaashooda aysan taagnayn hortiisa ay taagnayn anigu horta waxa weeye qodobka ugu horeeya oo ay diidan yihiin waxaan ahay nin bari ka ah ayaguna waa ogyahay ilaahna waa ogyahay shacabka Soomaaliyeed waa ogyahay labo sharciga islaamka saan ugu dhaganahay iyaguna dhagana iyaga dad ku jirayo oo waa wareeyto laayday anigu sharciga islaamka waxaan qaatay 2004 inay tahay waxa shayga kaliya oo aanu maanta ku badbaadi karo ilaahna noogu naxariisan karo cadaaladana lagu sugi karo kalsoonida ummadda lagu soo celin karo midnimada ummadda lagu soo celin karo ummadaha adduunka sidii ku nool yihiin baan ku noolaanay si ka fiicanba marka saddexdii qodob tan qodobka ugu dambeeyay waxa weeye leeyahay shisheeye ayaa jooga hadda bulan shisheeye jooga maray ciidan shisheeya oo hadda ka cabanayaan oo amisom la yiraahdo meesha bulan la yiraahdo ma joogto bulan waa shacab soo jabay oo soo burburay oo hantidooda la soo dhacay oo dhiigooda la banaystay ilaa iyo la keenay badda cas la keenay waa saasay bulan ku dhalatay ummadda waxa weeye madluuma ayaa halka isugu timid maanta isugu timid barnaamij waxa loo sameeyay maamul baa loo sameeyay kaga badbaadaan wixii dhibka ku hayay iyaguna ay ku kala badbaadaan marka anigu waxaan qabaa waxa weeye dhalinyarada reer Puntland oo hadda jooga kuwa jooga ma garatay buuraha iyo kuwa jooga ma garatay muxuu ahaa buurta kale oo halkaas oo qandalaya ah labadaba waa dhalinyarada waa u dhashay reer Puntland waa oo iyagana wali ka careysan oo leh wixii la rabay iyo sidii la rabay ma aragno cadaalad ma hayno sharciyada lama hayno midnimo ma hayno hadda wax dowladnimo meesha kuma haysan nin baa yimaada kareysa kursiga wuxuu raba ka sameeya annaguna badan ku dhamaano shaqada kuma haysano waa dhalinyaro cara u geysay waa anigu marka waxaan qabaa waxa weeye haddaan sharciyadii anigu aan la imaado oo cadaaladii aan la imaado oo iyaga la fariisto waxaan leeyahay wixii arabteen anaa keenay diinka kana maskax buu ku socdaa xigmuu ku socdaa qori kuma socdo dadka aad leenaysaan la dagaallamaysaanna waa ehelkiin waa muslim waa ahlu tawxiid ma qabato inaad dishaan ama idin diraan qoryaha dhiga haddii kale buqaad baa noqonaysa buqaad waxa weeye group ka soo horjeeda xaakim sharciga islaamka ku xukumaya shacbiga reer Puntland oo dhan baa markaa waajib wuxuu ku noqonayaa in la dagaalamaan oo la iska qabto marka taasina waxaan aaminsanahay in laga hortagi karo dhalinyaradaas ee buuraha ka soo degi karaan ummadahooda ay la mid noqon karaan ummadda Puntlandna dagaal iyo dil dambe uma baahna iyo wax argagaxiyo uma baahna waa ummad hore loo soo argagixiyay soo dhibtooday xaqoodii waayay la muxuu ahaaytay la dhacay la boobay muxuu ahaaytay xumaan dhan lagu sameeyay reer Puntland waa dad dul qaad la waayay dad dul fiican ka samaysan weeye dad dowladnimo raba weeye dad nabad raba weeye dad horumar jecel waay saasaad ku arkeen dad badan oo dowladda ama dacaayadeynaya ama dhibaya ama mucaarad ku noqonaya ma arkaysid dadkoo dhan waa dad nabad jecel waay hadda waxay u baahan yihiin cadaalad u baahan yihiin wiilashiisana anigu waxaan aaminsanahay barnaamijka kaliya oo wiilashaas xalka loogu heli karo haddii aniga maanta ma hayn karo kalimatu ana ma jecel ana waxa xalin kara ma oran ilaahay baa xalin kara laakiin barnaamijka anigu aan wado oo ku dhisan ma garatay shariicada islaamka iyo cadaaladda iyo wixii todoba tiir aan ka hadlay intaas dawi ayagu u tahay waxaan aaminsanahay 2 sano gudahood inaan xal u helayo mashaakilka maanta amniga dalka jira waa tahay mudane inta badan ba Puntland horta waqtiga oo nahayo adoo su'aalaha noo soo koobaya waxaa jira dowladda Puntland hadda Cabdiweli Gaas oo kale mar walba shirar buu qabtaa oo isagoo horkacaya dowladda federaalkana waan bogoynay badeen hadda xiriirkooda shirkii lagu qabtay magaalada Kismaayo oo kale marka adiga maxaa kaaga qorshaysan maxaa ka qabtaa fikirkaas ah yaani in Puntland oo ah hooyadii federaalka sheegata inay mar walba ay ka shaqeyso in ay dadka kala jirto iyo inay dowladda la shaqeyn waana sidoo sababtoo waxa weeye Puntland inay mar tiraaho hooyadii waxaan ahay federaalka iyo nidaamkii ummadda isu keenayay iyadana loo dhisayba Soomaaliya inay isu keento maanta dowladda la dhisay inay Cabdiweli uu ka hor yimaado Puntland shacabkeedu iyo dadka maamulkeeda kama hor imaan dowladda waa Cabdiweli Cali Gaas waa shakhsi madaxweyne ku xigeenkiisa waxa diiday oo yiri raalli kama ahi dariiqa aad ku socoto
shacabka reer puntlandna qaabkay usoo dhaweeyeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waad ka warqabtaa haddee maqaamka iyo sharafka iyo taariikhda reer puntland maba ahaba soomaaliya inay kala goyso in soomaaliya iyo federaalka inay iska hor yimaadaan mar waliba doorka odaynimada ayay qaadanaysay puntland anigu waxaan aaminsanahay doorkaas ayaan anigu haddaan madaxweyne noqdo ayaan qaadanayaa inaan ka odayeeyo midnimada ka shaqeeyo dowladda federaalka wixii ay iyadu xaggeeda ka gaabiso oo ay kaga gaabiso puntland haddii anaa oday u ah inaan uga raadiyo kala hadlo dowladda xuquuqda puntland ay leedahay hadday tahay ciidamadeeda mushaharada lana waxa weeye magaca soomaaliya lagu soo qaadaa dowladda dhexe wax kusoo qaadaa puntland waxa weeye waa gobolka ugu weyn shacab badan baa degan waxa weeye ciidamadeedu mushaaro kama qaataan muxuu ahayd federaal wasaaradda tacliinta lagama maalgeliyo lacagta ilaa $1 bilyan baa soo gashay dowladda xuquuqda reer puntland ay leedahay anigu waxaan qabaa waxa weeye marti kuma noqonayso haddaan madaxweyne noqdo xaqeeda waa inay hesho laakiin puntland inay noqoto madaxweynaheedu inuu madaxweyneyaasha kale gobolada hormuud ugu noqdo qaabku ma garatay muxuu ahaa ciraaq iyo soomaali kala tegeeda iyo magacba laga raadiyo waxaan challenge gareynayaa madaxweynaha federaalka anigu taa ilama qumana maqaamka iyo sharafka iyo karaamada ay leedahay puntlandna maaha iyo wixii loo dhisay sabaabihii loo dhisay anigu waxaan qabaa waxa weeye puntland odaynima maanta ka maqan odayaal badan baa meesha joogi jiray oo doctor cabdiraxmaan faroole cadda muuse raggii jiray oo dhan odayaal bay ahaayeen soo joogay muddo dheer soomaaliya oday baa ka maqan puntland baan hadda oran karaa haddii aan anigu buuxiyo halkaasina insha allahu tacala waxaan rajeynaya waxa weye xuquuqda puntland inay hesho isla markaas ma garatay muxuu ahaa dowladda federaalkana in gacan la siiyo mudnaanteedana ay hesho puntland waxaa khilaaf kala dhexeeya somaliland maxaa sabab maxaa si ka bedelka dhaa haddii adiga xilka aad ku guuleysatid 2019 ee musharaxnimadaada puntland wallaahi murashaxiin badan baa waxay ka dhigteen arrin iyadoo ay kaar kaliya noqday oo puntland arrinta sool iyo sanaag nasiib darro weyn waxa ah arrinta nagala dhexeysa somaliland dhul iyo dad buu ahaa oo la yidhaaho ma garatay muxuu ahaa sool iyo sanaag la yidhaaho oo dhul aada u baaxad weyn dad badanna ay degaan hadda tukaraq un baa laga hadlaa tuuro tukaraq la yidhahaa lagu soo ururiyey wax hadda ka jiraan waxaan qabaa inay mashruuc tahay mashruuc walaalkay cabdiweli uu doonayo inuu ama waqti korsado ama uu yiraaha dagaal baan galay oo waxaan soo taabtay laascaano marka dambena ciidan la keeno oo la kala kaxeeya somalilandna la yidhaha joog somaliland laascaano puntlandna lagu soo celiyo tukaraq gadaasheeda halkaasna xuduud laga dhigo nasiib darro weyn baa halkaa ka dhacday anigu waxaan qabanayaa wey anigu waxaan aaminsanahay waxa weye reer puntland oo ay iyagu wax ka dhisteen sool iyo sanaag xaq waxay u leeyihiin inay annaga puntlandna siday u dhisteen ay puntland ka mid noqdaan iyo inay iyagu dhistaan maamul iyagu ay leeyihiin simbale ana projectkan wada mataladan wada waxa weeye 2 sano oo hadda ka hadhay electionka in sool iyo sanaag loo sameeyo administration ka madax bannaan puntland ka madax bannaan somaliland waxaan qabaa 10% budgetka ay leedahay somaliland inay ogolaato in la siiyo maamulka cusub puntlandna ay bixiso 15% xataa inay bixiso international community ilaa 30 milyan oo kale looga helo lacag 60 milyan in la siiyo administration labada gobol ah oo aan ahayn madaxweyne iyo aan ahayn laakiin u diyaariya 2 sano u diyaariya muxuu ahayd maamul iyo referendum oo iyagu ay yiraahaan shacbigaasu masiirkooda iyagu ay ka tashadaan oo aysan noqon ping ball lagu ciyaaro ama kubad lagu dhex ciyaaro shacabka wada ogti dad badan baa ku dhintay dad badan baa ku qaxay dagaaladii hadda ugu dambeeyey labada gobol waxay istahleen waxa weeye shacbigooda inay helaan nabad inay helaan midnimo inay helaan mustaqbalkooda laga shaqeeyo بترول بقى كجرا ترى بدن لبدا قبلبا دمع وين وسومالنا هذا كجا جرا ugu weyn waxa weeye kheyraadka halka ku jira weeye anigu waxaan qabaa waxa weeye reer Puntland Sool
iyo dadka dega sanaag waa dad isra ahaan ka soo jeeda oo ehel la ah reer Puntland Puntlandna hadday hore u dhacday in ma garatay muxuu ahayd laga dhigto mashruuc in laga dhigto labada gobol haddaan madaxweyne noqdo waxaan aaminsanahay mashruucaasu ma sii soconayo laana barkayba ah sool ah barkayba sanaag ah oo caruurteyda waxaa dhashay waxa weeye reer sanaag ka timid hooyadood abtiga u yihiin anna waxay dhaleen reer sool bay dhalay marka waxa weeye ownership gaar ah iyo dareen gaar ah baan anigu u leeyahay ma garatay muxuu ahaa meesha la yidhaaho labada gobol ma noqonayaan laba gobol oo lagu galo ololaha lagu galo sheekadeeda waxaan rajeynayaa waxa weeye in lasoo afjiro arrintaas ay noqdaan laba gobol oo masiirkooda iyo ka taliya xorna u yihiin lana siiyo supportka ay u baahan yihiin iyadoo waqtigii barnaamijka uu soo gabagaboomay ama xilligii ugu dambeeyay aan gaarnay hal iyo laba maxaa usoo jeedinaysaa ummadda Soomaaliyeed iyo reer Puntland intaba Puntland Soomaaliya ka mid ah kulligood waxaan ujeedinaa waxa weeye ilaahay aan noqono ilaahay aan toobadkeeno dambiyadeena aad bay u bateen mana ka baxeeno shidada aan ku jirro ilaa aan ilaahay u toobadkeeno shareecadeena aanu qaadano Soomaalinimadeena aan soo ceshano aynu iska saarno shidada iyo dhibka aan isku hayno ilaahay mar haddaan usoo noqono cadaalad aynu sugno shareecadeeda qaadano anigu waxaan qabaa waxa weeye waxaanu rabno waa helaynaa haddii ay noqoto madax adeegga hore in lagu sii socdo Soomaali waxaan u sheegayaa ama reer Puntland ha noqdaan ama ha noqdaan ma garatay muxuu ahaa ilaahay cabsi ka qaadi mayo gaajo ka qaadi mayo cise xumo iyo dulliga hadda ku jiraan ilaahay kama qaadayo adduunyada ilaah baa maamusha ilaahna waa noo carooday welina waa noo careysan yihiin anigu waxaan qabaa waxa weeye riwaayadda iyo sheekada intaan iska dayno waxba aanu dooranaynaa iyo waxba aanu yeelaynaa iyo ma aniga walba rajo ku nool beenay inaan noqono looma baahna maanta meeshay Puntland joogto ma joogin 20 sano kahor maanta ka khatarsantaa Soomaaliya sidaas oo kale ilaahay ma soo noqono runta aynu ka wada hadalno wixii qaldan hala saxo wixii aan mudnayn inay wax noqdaanna waxaan leeyahay masaajidka ciyaarta ka daayaan si aan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhiga oo caawan kaga imaanaya xarunta dhexe ee STN ee magaalada tan Nairobi barnaamijka waxaa marti igu ahaa Xaaji Maxamed Yaasiin oo ah musharax madaxweyne Puntland 2019 inta barnaamijka midnimada ku kulmi doono waxaan kaga tageynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan la socodsiinayay anoo Kawsara xaaji waa mahadsantahay aad barakallahu